waxyaabaha ugu badan ee runtii aan arko markii aan bulshada ku dhex jiro waxa ay tahay arday badan oo runtii jaamacada dhigta kuwaas oo ka cabanaya computerkayga ayaa culays ah. sidoo kale dad aan jaamacada dhigan ayaa culayskaas arka. sidoo kale waxyaabaha aan arka waxaa ka mid ah dad shirkad ka shaqeeya ama company ama computer ku shaqeeya oo runtii computerkooda culays saa'id uu yahay. haddaba videogan waxaan kuu tusi doonaa hab yar oo fudud taas oo kuu fududeynaysa in haddii computerkaaga uu aad u culus yahay ama aad u kulaanayo adigoon waqti badan isticmaalin xalka ciladaasi keliya kuma haysato ay arday badan ayay wada haysataa. haddaba waxaan rabaa inaan videogan kuu tusiyo farsamada ugu fudud ee aan ku xallin karto haddii computerkaaga uu noqdo mid aad u culus, iyo sidoo kale markii aad isticmaalayso inuu iska noqdo isla markiiba mid aad u kulul. tani waa sheekadeyda. magacaygu waa Ismaaciil, halka aan kaala hadlayo waa barnaamijka Ismaaciilis Program. iyo golow inaan ku tusiyo farsamada inta aan ku tusinna dhaxtaal kadib aan isku soo laabano. isku soo wanaagsan saaxiibayaal, waa mar kale Ismaaciilis Program. hadda waxaad u diyaarsan tahay ayaan filayaa inaan ku tusiyo farsamada. hagaag waan ku faraxsanahay, laakiin video la garay intaan farsamada ku tusin si ay u gaarto asxaabtaada dhiirigelin ay ugu noqoto. haddaba aan ku tusiyo farsamada isoo eeg. waagaag saaxiibayaal, computerkaaga inuu culays noqdo waxuu ka imaan kartaa laba qaybood oo keliya. in raamka computerkaaga uu aad u yaryahay, shaqada computerkaaga ay qabtana ay aad u badan tahay. labo, in barnaamijyada qaar daatooyinkooda ay aad u badan yihiin kaas suurtagelin kara in computerka ay jaam ka dhigaan si fudud. marka koowaad waxaad isku hubaysaa raamkaaga intuu la egyahay. haddaad aragtay computerkaaga culays ah, si aad ku ogaato tag pc-ga dushiisa right click ku dhig, kadibna waxaad ka doorataa property. waxaa kuusoo bixi doona wajahada koowaad taas oo magaceeda loo yaqaano system. wajahadani waxaad ka dheehan kartaa ama ka ogaan kartaa xogta guud ee computerkaaga. meesha u socono waa raamka computerkeena waa 4G. raamka computerkeena maadaama uu yahay 4GB, sidoo kalena system type-ka uu yahay 64-bit ama Core i7. waxaan rabaa haddaba culayska hadduu computerkaaga ku imaado inaad laba meelmood ka filato, inay raamka tahay iyo inay si guud barnaamij daatadiisu aad u badan tahay ay tahay. tusaale, hadduu raamkaaga yahay maxaa xal ah hadduu internet ama computerkaaga culays noqdo. tusaale, waxaan soo kacsanayaa barnaamijyo kala duwan. barnaamijyadan kala duwan ayaa kuu kacsan, tusaale oo ka mid yahay Office Word, ama waxaa loo yaqaano Framework, ama waxaa loo yaqaano barnaamijyo kale. hagaag saaxiibayaal, markii barnaamijyadan kuu kacsan yihiin, si fudud taskbarka computerkaaga dul tag, right click dheh. markay kuusoo baxda daaqadan waxaad kasii doorataa task manager. markaa task manager aad doorato waxaa kuusoo bixi doono dhammaan softwareda ku jira computerkaaga, raamka qaabka ugu shaqeeyaan iyo kuwa ugu shaqada badan. sidaa ujeedid waa kuwana softwareda computerkaaga ku jira. kuwa ugu badan ee hadda shaqeynaya waa Adobe Premiere Pro, CS5, 6.3. waa barnaamijka hadda aan wax ku edit gareyn doono daqiiqado kadib aan in kugu soo gudbi doono videoga. raamka CPU-ga ama memory-ga intaas ayuu cunayaa. CPU-giisa shaqadiisa waa wataa oo ay socotaa. task manager-ka ayaa kamid ah hadda midkaan isticmaalayno, iyo kuwan kale oo kamid ah Adobe Genius software. kuwani badan hadda way wada dansan yihiin oo waa 00. kuwa waxaa jiro shaqeynayo oo halka hoose ku jiro, sida haddaan halka hoose u baxano sida ujeedid kuwa qaar ayaa shaqeynaya sida kan oo kale. very high aad buu u shaqeynayaa. sidoo kale barnaamijyada shaqeyn kara computerkaaga ayaad halkan ka arki kartaa. alcumuum, si fudud barnaamijyada qaar waxa ay kaa buuxinayaan ama ay culays ku keeni karaan barnaamijkaaga ama computerkaaga. si fudud si aad hortagto waxaan ku leeyahay fadlan sameey sidan soo socoto. tusaale, haddii uu jiro barnaamij kuu kacsan oo kale, way fududahay. si barnaamijkaas aad usoo gabagabayso shaqadiisa oo dhan, right click ku dheh, kadib waxaad taabataa end task. barnaamijka aad aragto culayskiisa ama qaybtan high oo noqdo power usage-kiisa ama computerka kuleel markuu noqdo, waxaad ka fiiri doontaa qaybtan very low ah. waxay noqon doontaa dhowr xaba ayaa waxay noqon doontaa very high.
dabka computerkaaga ayuu saaid u cuni doonaa si fudud. si aad iskaga xirta gebi ahaanba shaqadiisa way fududahay, keliya right click ku dheh kadibna waxaa dhahdaa end task. hawada ayuu ka bixi doonaa, computerkaaga kama tirmi doona, laakiin awoodii ama culeyska badnayn uu ku hayo computerkaaga ayaa joogsan doonta. isku soo wanaagsan saaxiibayaal, waan filaya inaad ka hesho farsamadaani. aan ku weydiiyey mataqaanaa saaxiib computerkiisa culeys uu yahay ama uu kuleel ka batay. haddaba si uga faa'iidaysto farsamadaani waxaan ku leeyahay fadlan halka hoose commentiga kusoo minish garay, ama video aad daawanayso la wadaag adigoo taabanaya calaamadda share si uga faa'iidaysto. ogowna saaxiibkaa oo aad u faa'iidayso oo aad gaarsiiso farsamadaani waxay kaa caawin kartaa adigana inay kusoo gaaraan farsamooyin kale oo aad u badan. sida aan kula soo wadaagay ayaan u rajeynaya inaad ula wadaagi doonto asxaabtaada. waad ku mahadsan daawashada videogan, waxay noo balam ah farsamadan iyo farsamada xigta.